بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dhammaanaad baan wada salaamayaa walaalahayga muslimka ah dhammaantiin aad baan wada salaamayaa maanta waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo qayb ka mid ah hacking cashar security oo halkan maanta ka hadli doona wuxuu noqon doonaa applicationka waa application ah inta badan dadkii ku qarsadaan sawiraanta iyo waxyaabaha noocaas ah fiidiyoyada sawiraanta oo ay u haystaan inuu safe yahay ayaan maanta tusi doonaa saad u jebin lahayd adigoon isticmaalin software ama programkaas wax damage u goysan si aan lagu ogaan adoo programka first waran adigoon wax kale ku samayn sawiraanta ku arki lahayd insha Allah maanta tusi doonaa hadda ninka barnaamijka soo kiciyo barnaamij private ah loogu talagalay waxyaabaha sensitive data in lagu qariyo haddaan galo login geliyo waa kan uu saarayaa halkan sawiraanta lagu qariyaa fiidiyowga muusiga applicationska waxyaabo badan baa la qariyaa ninka sawiraanta kala haddaan galno folder sameeyo waxaa la isticmaalaa application aad u tiro badan laakiin systemkay marayaan isku wada mid yahay kana hadda isticmaalaa gallery plus qaar baa isticmaalaa hide photos qaar baa oo tiro badan laakiin hal qaabo bay ama hal shaqo bay wada qabanayaan oo ah in sawiraanta ku qariyaan ay secure kaaga dhigaan marka sawiran gelin doonaa sawirkaas aan ku qoran doonaa sawirkaas hadda ku jira soo aragtaan sawirka babyga yar baa ku jira soo aragtaan sawirka xagan hadan ka gallery-gana kuma jiro sawirka xagan gallery-ga hadan ka eegana kuma jiro marka wuxuu programku ku dhex qarsan yahay hadan israada gal imka password bi weydiinaya passwordkayga markaan imka gashto pictureskan kan tago sawirku waa kan ugu jira sawirkaas uu xafiday hadaba hadda aynu gali doonaa casharkeena ujeedadiisa ugu weyn imka qarsan yahay sawirkii already waa la qariyay qof passwordkiisa hayo mooyaan qof kale ma ogaan karayo sawirka meesha ku jira okay sawirka inaad markaa soo saarto doonsaad ogaato marka ugu horeysa marka san file manager-kaaga u timaado ama dhinaca memory-ga laga maamulo internal storage iyo external storage ka beesha laga maamulo ka timaado istaan soo baxaysa Hawaii iyo kala duwan laakiin san marka kugu soo baxdo folders ki soo timaado folders tira badan ayaa aniga hadda igu jira laakiin adiga waxa laga yaabaa inay folders ku yaraadaan shan xabo lix xabo meelaha inay noqdaan kugu jira marka right click badanaysa right click oo fahminaa right click badanaysa ama dhakada ka dul joogta xagga hore right click oranaysa saddexda button xagga hoose ku yaala home-ta iyo back-ta kale right click da setting gad galisa marka sano kala ugu taagan marka labadaas ayun baa ku check ku saaray labadaas kaliya saawi originalka hadda laakiin taas saddexaad ku dar check saaro hide show hidden files oo itus ah faylasha qarsoon taamka ku dhufatay bags ka soo dhaxgal memory-ga maskaxda internal storage-ka deetana waxaad arki doontaa foldaro badan oo dhibic hebel ay ku qorantay marka folderku hadduu dot hebel ka bilowdo wuxuu ku sheegay in folder wax lagu qariyay inuu yahay imka hide oo kala xagan iska caday wax lagu jira xagaa ku qarsan laakiin kanu soconaanu isticmaalo waa program data
program data haddaan galo Android aan kasii galo language aan kasii galo xagga aan kasii galo pictures xagga weliga muuqda haddaan ku dhufto pictures Farxaan oo folderkan wax ku qoranay weeyaan waa folderka applicationku isticmaalayo oo wax ku qoranayo haddaan galno sawirkii waa kan sawirkii waa kaa weeyaan sawirkii hadda sawir maaha waayo haddaan ku dhufto isoo bixi maayo no apps can perform this action application qaban kara hawshan ma jiro waa sawir hadda maaha sababtuna sawir noqonayna waa extension wax la yiraahdo formatkii faylka ayaa applicationka uu bedelayaa hadduu sawirka magaciisu ahaa abdi.jpg formatiska kala duwan pictures.jpg.png.gif bay noqdaan marka formatiska kala duwan xitaa video hadii uu xiran yahay formatku kala duwan yahay marka automatically formatku uu bedelayaa hagu hebel.gif ka siin la ay ka bedelayaa waxyaabo kale ku qoraya marka sawirkii ma aqoonsanayo mobile inuu sawiriyeen kale marka automatically ayuu bedelayaa imka hadan abar saaw yarahayo daaqadan bay soo baxsay rename hadan ku sameeyo aan ku qoray marka kaba soo qaad taasga qoro Farxaan dot marka xagan marka marayso magaca doonta ku qori doonta hebel ama ama waxa doonta ku qorto laakiin dot way ku baarbaaraysa haddii waxa meesha lagu qariyay fiidiyoyadu formatkoodu kala duwan mp4 buu noqon karayaa wuxuu kala noqon karayaa falaaf wuxuu noqon karayaa هذا mb wuxuu noqonayaa 3gb oo noqon karayaa marka way kala duwan formatiska maxay ahaday videos sawiraantana saasuu kala duwanaan karaa png buu noqon karayaa gif buu noqon karayaa way tiro badan iyaguna formatiskooda marka waad ku baarbaaraysaa dad si fiican u kala taqaano formatiska videoska sawiraanta waad ku baarbaari karaysaa imika kaygan haddana uu ku eego sawiraanta ugu jira waan garan karayaa marka waxay ku xidhantay qofka doonaysa in wuxuu qariyo la soo baxdo iyo ayay ku xidhantay marka aanu waan garanayaa sawirku wuxuu ahaa gif buu ahaa gif haddana ka dhigan oo kaysiyo already soo aragtaan sawirku ii soo baxay marka habkaas ayaad wax alaali wixii la qariyay barta bay iimaanayaan waad furi karaysaa imika haddaynu ku noqono asalaam maxamed applicationkii haddaan ku noqono applicationka haddaan galo sawirku ku jira xaggan waa kan waxa idgaraysan haddana waa xaggii kale oo inagii kala soo baxnay hadda ka soo saarnay qalimkan sawirka la ku soo beeriyo sawirka la isna qarinaya sidii tijaabada loo qaadno sawirkayga waxaan ku eego ilaada hide soo aragtaan sawirka labaadna uu qariyaan oo leeyahay tan ka soo wada noqdo aan bartii habka raacay ma raacaya tan ka soo wada noqdo marka saa faylka way imaado wayna soo furata laakiin faylka inaad tiraahdaa show hidden files faylasha qarsoon tus wayna tiktok ku saaran marka ugu horeysa original ahaan ama mobile ku yahay laba saaran ka saddexaadna inaad ku darsataa oo saartaa ka program data oo waa programkan meesha ku qariyo sawiraanta weeyaan Android haddaan sii galo language aan sii galo .fr aan sii galo pictures haddaan sii galo folderka ku jireen oo ka imika sawirku waa kan imika haddaan ku dhufto sawir ahaan uma shaqeynayso soo aragtaan haddaan ku dhufto sawir ahaan uma shaqeyn karayo laakiin haddaan abaaraan sawir yarahayo rename aan ku sameeyo waxaan ku qoro magacayga iska qoro dot marka waxaan ku qorayaa formatkii xagga dambe ka raacayna .gif.png.jpg.mp4 wax alaali wuxuu ahaa video ama formatkan doonaya ayaan ku qorayaa ana waliba ku baarbaaraya oo haddaan 3gb ku eego iga diido mp4 ku eego iga diido falaaf ku eego saa ugu baarbaaraya
sawiraanta iyaguna sidoo kale gif baan ku eegaya oo iga diidaya, mid kale ku eegaya oo iga diidaya. laakiin kan anigu waan iska sii garanayaa maadaama aan doonayo waqti ku dheeraado. gif baan ku eegaya waayo gif waa sawirkan waad aragtaan sawirkii waa kan wuu soo baxay. markaa saas ayaad ku hakin karaysaa uploadan oo dadku ay u haystaan security u yahay markay ku qariyaan wax, laakiin waa application waa la soo saari karaya waana la hakin karaa, hakin waa lagu samayn karaa. taymka sawiraantii labadii sawir buu ii sheegay inay security yihiin oo xafiday, laakiin ma xafidna. labadii sawir baan soo saarnay laakiin security ma labadii sawir ba security ma wax xafidan ma. intaas ayaan jeclaa inaan idin sheego. aniga Farxaan Xasan Dalbaax, dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.